xogta dhabta ee sababtay in hoggaanka sare ee siyaasadda iyo dhaqanka ay ku qaadacaan maanta ka qaybgalka doorashada kuraasta Somaliland lagu dooranayo Muqdisho ayaa waxay timi kadib markii laga warhelay xogta kulan ay dhawaan hotel Muqdisho ku yaala ku yeesheen dhalinyarada isku deegaan ka soo jeedaan Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Liibaan Yuusuf Al-Cadaala kaasoo lagu dejiyay qorshaha faragelinta doorashada kuraasta Somaliland iyagoona intaasi kadib ay keentay in si weyn uga cadhoodaan hoggaanka matalaadda siyaasadda iyo dhaqanka ee Somaliland. dhalinyaradan oo hormuudka u yahay Al-Cadaala oo ah kuwa maskaxda ka qabsaday Ra'iisul Wasaare Roble isla markaana la wareegay dhammaan awoodihii xafiiskiisa iyo mas'uuliyaddii uu qaranka u hayay ayaa u gudbiyay liiska dad aan helnay oo dhammaantood ay qaraabo yihiin dhalinyaradan kuwaasoo ah murashaxiin loo boobayo doorashada kuraasta Somaliland isla markaana ay ku soo xusheen qaab qaraabanimo sida abti, seedi, dumaashi, reer awowo, reer ayeeyo iyo sidoo kale ehel kale ayna tusaale u yihiin 6 kursi ee kala ah Hob 207, Hob 220, Hob 215, Hob 218, Hob 209, Hob 201 oo dhammaantood ay murashaxiinta u tartamaya aanay ahayn murashaxiintii matalaadooda lahaa kuraastaasi balse ay yihiin murashaxiin ku soo galay qaab qaraabanimo. Roble oo qaadanaya talada kooxdiisana ay isku deegaanka ka soo jeedaan ayaa isagoo hogaaminaya waxay habeennimadii Salaasadii 18 bishan kulan albaabadu u xiran yihiin la qaateen Ra'iisul Wasaare ku-xigeenkiisa Mahdi Guuleed iyo sidoo kale gudoomiyaha guddida doorashooyinka Somaliland Khadar Xariir oo ahaa xubintii markii hore muranka siyaasadeed dhalisay isla markaana uu Mahdi Guuleed booskaasi ku geeyay hab xididnimo waxaanay ku qanceen inay qaataan Mahdi iyo Khadar Xariir dhaqankan cusub ee candhawada kiilka oo ah dhaqan ku cusub isla markaana ku soo biiray saaxadda siyaasadda Soomaaliya waxaanay Mahdi Guuleed iyo Khadar Xariir dhankooda aqbaleen damacaasi Roble iyo kooxdiisa iyagoona dhankooda keenay liis kaasi la mid ah oo candhawadaaga Khadar iyo sidoo kale Mahdi Guuleed isla markaana ay kooxdii kale ee qorshahaasi wadatay ka ogolaatay Roble kooxdiisa Mahdi Guuleed iyo sidoo kale Khadar Xariir iyagoo si wada jira u fulinaya damaca cusub ayaa waxay gebi ahaanba meesha ka saareen duubabkii dhaqanka siyaasiyiintii iyo bulshadii reedka ahayd ee lahayd soo xulista ergooyinka doorashada kuraasta xildhibaanada Somaliland. kooxdan budhcadka waxay sidoo kale ku xadgudbeen isla markaana ay dhaxal wareejiyeen dhammaan xuquuqihii ay lahaayeen jufooyinka iyo beelaha xildhibaanada Somaliland ka soo jeeda. kooxdan budhcadka ayaa sidoo kale waxay ku xadgudbeen isla markaana ay dhaxal wareejiyeen dhammaan xuquuqihii ay lahaayeen jufooyinka iyo beelaha xildhibaanada Somaliland ka soo jeeda. sidoo kale Mahdi Guuleed iyo Khadar Xariir ayaa hadalkii hoggaanka siyaasadda iyo dhaqanka ee matalaadda Somaliland ay maanta gebi ahaanba kaga baxeen ka qaybgalka waxa loogu yeeray doorashada Soomaaliya ay isku dayeen inay xalaashadaan Mahdi Guuleed iyo sidoo kale Roble iyo cayayaanka ka hoos shaqeynaya kadib waxay qabanqaabiyeen kulan lagu xoojinayo dhaqankan cusub ee candhawadaagta isagoona si badheedha Mahdi Guuleed u taageeray damaca Roble dhanka kalena si toos ah uga hor yimi macalinkiisii siyaasadda ee Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo muddo dheer u dhiljiifteynayay kana doorbiday dhaqankan cusub ee fashilmay. dhanka kale shirkii galabta ee Mahdi Guuleed iyo sidoo kale siyaasiyiintii ku wehelinayay ay ku sheegeen inay xal kaga bixinayaan hadalkii isimkooda guud Boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow taasoo ayana ah arrin ugub ku ah taariikhda dhaqanka Soomaaliyeed oo aan hore loo arki jirin isla markaana aanay u dhicin in siyaasi uu xal ka bixiyo hadalkii isimkiisa guud. habdhaqankan cusub iyo dhawaqa hadalka gefka ee ka soo yeedhay Mahdi Guuleed waxa uu durba abuuray guux iyo kacdoon lagaga soo horjeedo dhaqamada istaba jooga ee ka imanaya xafiiska Roble waxaana Muqdisho caawa ka bilaabmay qabanqaabada shir ay u dhan yihiin dhammaan beelaha direed oo si adag uga guduuday qafafka istaba jooga ee laga soo abaabulayo xafiiska Ra'iisul Wasaaraha shaqadiisa gabay ee Maxamed Xuseen Roble.